maalintii boqoranayd balse la dayacay 26 Juun 1960 waa markii calan Soomaaliyeed oo xora laga taago gay ay Soomaali degto kaasi oo ah Hargeysa caasimadda waqtigan ee Somaliland waa maalintii dalkii afraad ee Afrikaana ay xorriyad qaatay sanadkii 1960 kaliya waxa ka horeeyay Cameroon oo xorriyadda qaadatay kowdii bishii koobaad 1960 Togo oo iyaduna xorriyadda qaadatay 27 Abriil 1960 Mali Federation dalkii la odhan jiray oo isaguna xorriyadda qaatay 20 Juun 1960 waddankani 2 bilood ka bacdi waxa uu kala go'ay Mali iyo Senegal Somaliland waxa ay isku maalin 26 Juun 1960 xorriyadda wada qaateen waddanka la yiraahdo Madagascar kadib midnimo ku sheegtay Soomaalida ee kowdii July 1960 Rekoofreedkuna ay yaqaanaan kowda Luulyo Soomaaliya wixii ugu horeeyay hoos u dhigtay waxa ay ahayd xuska 26 Juun oo ah maalintii Somaliland ay xorriyadda ka qaadatay Ingiriiska muddo kadib midowga markii uu dhashay kacaankii uu hogaaminayay Siyaad Barre waa uu baabiyay maalintaasi waxaana laga dhigay maalinta iskaashatooyinka Soomaaliya 12 sano oo kacaanku jiray maalinta 26 Juun waxa isu soo bixi jiray habro durbaana sita kuwaasi oo xusaya maalinta iskaashatooyinka Soomaaliya baabinta 26 Juun waxay horseeday inay baabado taariikhdii dalka iyo dadka Somaliland waxa baabay oo la ilaaway halgamadii Somaliland loo soo galay 60kii waxa isaguna meesha ka baxay oo aan dad badan maanta aqoonba xisbiyadii Somaliland ee 60kii xorriyadda keenay dhulka Soomaalida kuwaasi oo kala ahaa SNL USP iyo NUF 26 Juun ee Somaliland ay hoos u dhigtay xuskeedu waa ka horseeday inay dunidu ilowday inuu jiray waddan la odhan jiray Somaliland oo xorriyadda ka qaatay Ingiriiska 1960kii taas beddelkeeda waxa ay Somaliland door biday inay weynayso maalinta 18 May oo caalamka tusaysa inuu jiro waddan la yiraahdo Somaliland oo Soomaaliya ka go'ay taasi oo gaf ku ah taariikhda dalka iyo dadka Somaliland sida ay aaminsan yihiin dad badani 64 sano kadib caawa ayaa si weyn looga dabaaldegaya xuska munaasabadda 26 Juun oo ah markii calan Soomaaliyeed oo xora laga taagay gay ay Soomaali degto oo ahaa beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa taasi oo damaashaadka iyo fantasiyadeeda maalmihii u dambeeyay si weyn looga dareemayay Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland balse waxa jira magaalooyin kale oo Soomaalidu ay degto oo maalintani laga xuso kuwaasoo ay ka mid yihiin magaalada caasimadda waa Soomaaliya ee Muqdisho balse waxa ay dhaadan yihiin amba ay samoog yihiin in calanka laga taagay Hargeysa cidii xorriyadda qaadatayna ay ahayd Somaliland balse hoos u dhigidda iyo dayacaadda maalintani ay ku sameysay Somaliland ee ay ka weynaysay 18 May oo ah markii dib madaxbannaanideeda Somaliland ay ula soo noqotay 1991 ee laga dhawaaqay Somaliland magaalada Burco ay Somaliland ka door biday inay ka weynayso maalintan mudan xuska iyo dabaaldegga ee 26 Juun 1960kii oo ahayd markii ugu horeysay ee xorriyadda ay qaataan Somaliland xaflad weyn oo lagu xusayo munaasabadda dabaaldegga maalinta xorriyadda ee 26 Juun ayaa la filayaa caawa inay ka dhacdo qasriga madaxtooyada Somaliland halkaasi oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeedin doono madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi 26 Juun 64 sano kadib maalintii Somaliland ay xorriyaddeeda ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska ayaa sanadkan uga duwan Somaliland maadaama si weyn shacabka Somaliland ay u naawilayaan اعترافكي تاسو la filayo in Ethiopia oo Charles Somaliland ay maalmaha soo socda ku dhawaaqaan aqoonsiga Somaliland taas beddelkeedana ay dhaafsadaan isafgarad dhawaan ay wada galeen madaxda Somaliland iyo Ethiopia oo waddanka Ethiopia uu ogolaanaya in 20 kilomitir oo badda Somaliland ay isticmaashay Ethiopia taas beddelkeedana aqoonsi buuxa Somaliland ay siiso ayna noqoto waddankii ugu horeeyay ee Afrikaana ee Somaliland u aqoonsada qaran jira